bal suurayso qisada wiil yaroo faqiir ah oo ku nool meel tuulo ah isla markaana ka shaqeeya meel beer ah muddo 17 saacadood ah maalin kasta si uu u helo keliya qadada uu maalinkaa cuni lahaa. bal ka waran haddaba daawada haddaan ku idhaahdo wiilkaa yari wuxuu noqon doonaa hadhow mustaqbalka mulkiilaha shirkadda caanka ah aynu wada naqaano maanta ee samaysa gawaadhida ee lagu magacaabo Hyundai. maanta waxaynu muuqaalkan kaga sheekeynaa saaxiibayaal qisada dhiirigelinta leh ee aasaasaha iyo mulkiilaha shirkadda Hyundai, Chan Chu-yang. haddaba ku soo dhowaada saaxiibayaal kanaalkeena, kanaalka dadka hamiga sare leh ee hansare. Chan Chu-yang waxa uu dhashay sanadu markay ahayd 1915 waxaanu ku dhashay tuulo yar oo ku taalo koonfurta Kuuriya oo lagu magacaabi jiray Tongong County. haddaba bilowgii horeba nolosha Chang waxa uu la kacay oo indhaha ku kala qaaday isla markaana ku barbaaray nolosha faqriga ah ee ay ku noolaayeen qoyskiisu iyo dhammaanba dadkii la deganaa tuulada oo iyaguna ku noolaaun mid la mid ah ama ka agdhow midda qoyskooda, maadaamay ku wada noolaayeen hal tuulo oo yar isla markaana tuulo ay degan yihiin dad faqriya. haddaba yaraantiisii Chang waxa uu ahaa mid aad u xiisayn jiray mustaqbalka inuu noqdo macallin. waxaanu iska dhigdhigi jiray una dhaqmi jiray sidii inuu yahay macallin marka uu carruurta asaagiya la ciyaarayo. laakiinse saaxiibayaal dhibka Chang haystay ayaa ahaa inaynay qoyskiisu haba yaraatee aanay awood u lahayn inay ka bixiyaan qarashka dugsiga. middan ayaa haddaba saaxiibayaal ka dhigtay wiilkii yaraa Chan inuu ka shaqeeyo dhinacaas iyo beerta, isagoona dhinaciisa wixii uu awoodo ka caawinayay qoyskiisa. laakiinse iyagoo sidaasoo dhan u shaqaynaya haddana maalmaha qaar cunnada ayaaba u goyn jirto, yacni wax la'aanta baahsan ee haysatay qoyskan awgeed. haddaba saaxiibayaal markii ay Chan da'diisu soo yaro kortay waxa uu tuulada ka soo ururin jiray ama ka soo goyn jiray xaabada, kadibna wuxuu u qaadi jiray oo u iibgeyn jiray dhankaas iyo magaalada. haddaba intii wiilkii yara Chang uu iibgeynay magaalada xaabada wuxuu arkay in dadka magaalada degan ay yihiinba dad ku nool nolol ka duwan midii tuuladiisa ka jirtay, dad haysta ama wata dhar aad u qurux badan, cunaya oo cabaya, isla markaana aan haba yaraatay qabanayn mid la mid ah shaqooyinkii adadka ah ee ay ka qaban jireen tuulada. haddaba middan ayaa ka dhigtay wiilkii yaraa Chan mid in badan ka fikira nolosha magaalada iyo mustaqbalkiisa, isagoona rabay oo ku fikiri jiray wakhti kasta sidii uu noloshiisa horumar u gaadhsiin lahaa ugana tegi lahaa nolosha adag ee tuuladiisa ilaa laga soo gaarayay markii ay Chan da'diisu soo gaadhaysay da'da 16 jirka. sannaduna wakhtigaa waxay ku beegnayd 1931. haddaba maalin maalmaha ka mid ah wiilkii yaraa Chan oo alaab iyo waxyaabo caynkaas oo magaalada u iibgeeyey ayaa waxay ishiisu ku dhacday jaraa'id ay ku qoran tahay maqaal tibaaxaya in kombani ka shaqayn jiray dhinaca dhismaha oo qaadanaya shaqaale cusub. haddaba markii uu akhriyay Chan warkan waxa ku dhashay hami ah inuu marow ka mid noqon doono shaqaalaha uu qaadanaya kombanigan. haddaba saaxiibayaal maalinkaa markii uu dib uga noqday tuuladiisii waxa uu qaatay go'aankaas oo ahaa run ahaantii mid aad u layaab badan. si sir ah ayuu habeen madow uga soo dhaqaajiyey tuuladiisii, taasna waxa sababaysay oo uu sidaa u samaynayay waalidkiisa oo haba yaraatee aan ogolayn inuu ka fogaado tuulada iyo beerta. safarkan haddaba habeenkaas waxaa kula weelinayay oo kula jiray wiil ka mid ah asxaabtii ugu dhowaa ee tuulada ku lahaa, iyagoona u dhaqaajiyey habeenkaas dhinacaas iyo halkii ay ka xigtay magaaladu. gaadhi faraskii ay magaalada ku tegi jireenna ay ka baqeen in lagu qabto inta ay diyaarinayaan ay rararayaan. waxaanay ku khasbanaadeen inay u lugeeyaan masaafo dhan 160 kiiloomitir oo ahayd masaafada u dhaxaysa magaalada iyo tuuladooda. haddaba saaxiibayaal markay soo galeen isagii wiilkii saaxiibkii ahaa magaalada waxay bilaabi doonaan shaqadii ay u soo dhaxeen habeenada. inkastoo ay ahayd shaqadan dhismuhu mid aad u adag, da'diisuna ay aad u yareed wakhtigaa oo waxaa buu jiray wakhtiga 17 sano quryaata, haddana waxay ahayd shaqadan dhismuhu mid uu ku dareemaya xorriyad, kharash ahaanna waxay ahayd mid uga fiican midii beerta. haddaba markii uu halkaa ka shaqaynayay muddo yaro kooban oo aan sidaasba u sii badnayn oo keliya tahayd 2 bilood, waxaa dhanka kalena ka socday baadigoob ay wadeen qoyskiisu, maadaama oo haddaba saaxiibayaal aan laga warqabin bixitaanka labada wiil. waxaa muddadaasi 2 bilood ahba socotay baadigoobka loogu jiro ruux iyo raq meeshii ay ku dambeeyeen, ilaa maalin maalmaha ka mid ah aabbaha dhalay Chang oo magaalada ka raadinaya wiilkiisii ay ishiisu soo qabatay wiilkii yaraa Chang ahaa oo ka shaqaynaya goob dhisma ka socday. kadibna gebigiisiiba tunka intuu soo qabtay ayuu ku soo celiyey
dhankaas iyo tuuladii iyo beertii si uu halkaasi mar labaad uga shaqeeyo. balse wiilka yar muusan ahayn mid gebi ahaanba ku faraxsan joogista tuuladan yar. waxaanuu ahaa wiil yaroo hiigsanaya inuu samaysto nolol ka duwan middan yar ee rafaadka ah ee ka jirta tuuladiisa. laakiinse qoyskiisa ayaa ahaa qaar mar waliba isha ku hayay oo haba yaraataan raalli ka ahayn inuu wiilkooda John uu ka tago tuulada iyo shaqada beerta. haddaba muddadii 2 bilood ahayd uu John ka shaqaynayay kombanigaas dhismaha, waxa uu xariif ku noqday oo uu si fiican u kala bartay xirfadda dhismaha. balse markastuu sidhaahdo u baxsa dhankaasii magaalada oo ka dhow xaafadda, waa la soo qabanayay oo waxa uu noqday mid shaxdiisa la fahmay oo mar waliba markuu baxsado waa la soo qabanayo waxa lagu soo celinayay tuulada. laakiinse John muusan ahayn saaxiibayaal mid ka rajo dhigay inuu marun kala yaraan doono ilaalada xad-dhaafka ah ee qoyskiisu ku hayaan. sidoo kalena wuxuu ogaa inaanay noloshan tuuladu iyo qodista beerta aysan haba yaraatee ahayn midii uu ku xaqiijin lahaa rumaynta riyadiisa. wax ka soo socdaana aanay jirin haba yaraatee meeshan, taasuna sababaysay inuu tiraba 2 goor kala baxsado. balse sidaynu soo sheegnay, mar kastuu baxsado odayga aabihiya unbaa isla markaaba soo qabanayay oo ugu soo celinayay dhankaasii tuulada ilaa ay laga soo gaadhiyay. haddaba saaxiibayaal sanaddu markay ahayd 1934 wakhtigaasuu da'diisu maraysay 18 jir. markaan waxa uu samaynayaa iskudagiisii afraad oo uu ku baxsanayay, balse markaan cid hor istaagtay maysan jirin. waxaanuu soo gaadhay markaan Seoul oo ahayd caasimaddii markaasi dalweynihii Korea. waxaanu intii uu joogay caasimadda uu qabanayay shaqo kastoo markaasi ka soo horbaxdaa. waxaanuu ku horeeyey shaqo dhanka dhismaha ah, kadibna wuxuu uga sii gudbay dhankaas iyo shaqo warshadeed. sidoo kale ugu dambeyntii shaqooyinka uu qabtay waxaa ka mid ahayd shaqo delivery ah oo markaasi wuxuu uga shaqaynayay goob store ah oo lagu magacaabi jiray Bokoyon Rice Shop. waxaanuu alaabaha u kala qaadi jiray xarumaha kala duwan ee stoorku uu ku leeyahay magaalada. haddaba intuu John ka shaqaynay saaxiiba shaqadan waxa aad ugu bogay oo isha si weyn ugu hayay mulkiilihii markaasi stoorka ah oo lagu magacaabi jiray Kim. waxa uu mid isha si weyn ugu hayay muddadaas uu ka shaqaynayay meheradiisa. haddaba keliyaata muddo 6 bilood oo quriyata markii uu alaabaha gurgurayay ayaa waxa uu yeedhay Kim. waxaanuu siiyey shaqo ka saraysa midii uu hore uga shaqaynayay oo uu dalacsiiyey. waxaanu ka dhigay ninka dhan store managerka ah ama maamulaha ah, oo imika ninkii John waxa laga dalacsiiyey shaqadii xamaaliga ahayd oo imika wuxuu xidhan yahay suud oo waxuu noqday mid kala maamulaya markaasi shaqada stoorka. intaas kadib John waxa uu mid si weyn ugu dadaala oo xil weyn iskaga saara sidii uu kor ugu sii qaadi lahaa ganacsigaasi, maadaama uu dareensanaa in abaal weyn uu galay mulkiilaha stoorku. haddaba wax kastaaba waxay u socdeen si degan oo fiican ilaa laga soo gaadhay saaxiibayaal sanaddu markay ahayd 1937 oo ku beegnayd 2 sano kadib markii store managerka uu noqday. waxaa xanuun aad u daran soo wajahay Mr. Kim, mulkiilihii stoorka. haddaba markii uu xanuunku ku sii batay ganacsada Kim ee uu ogaaday inaanu xanuunkan ka kacayn, waxa uu yidhi khalaas, yacni haddeetaan dardaarmo. haddaba maalinkaas waxaa la joogay isla markaana dadkii dul taagnaa ka mid ahaa wiilkii John. haddaba markii uu dardaarmayay Kim, waxa uu ku dardaarmay inuu ganacsigiisa farta ka saari doono isla markaana ku wareejin doono wiilkii John. haddaba xilligaasi John da'diisu waxay ahayd 22 jir. John waxa uu ka mid noqday mid ka mid ah ganacsatadii caasimadda oo imika ninkii John ahaa waa ganacsade. haddaba 2 sano ee ku xigtay waxa uu mid dadaal iyo juhdi ka badan midkii hore geliya, maadaama uu imika isku arkayay ninka ganacsiga iska leh. haddaba waxyaabihii ku dadaali jiray waxaa ka mid ahaa inuu dhiso sharafka ganacsigiisa oo waxa uu ahaa mid mar waliba ku dadaali jiray inuu suuqa ganacsiga magac ku dhex yeesho. waana sida dhacday markii dambeba oo John iyo ganacsigiisa waxay noqdeen mid sumcad ballaaran ku dhex leh suuqa ilaa ay laga soo gaarayay dhacdadaas oo ah mid aad u xanuun badan. waxaa dushiisa ka qarxay dagaalkii labaad ee dunida. wakhtigaasi isaga kuuriyooyinku waxay ahaayeen hal dal oo keliya, waxaana laisku odhan jiray Korea. waxaana gumaysi ku haysatay oo markaasi xukumaysay dowladdii wakhtigaasi ka talinaysay dalka Japan. yacni Korea maysan ahayn mid xor ah oo waxaa dhakada ka haysatay dalka Japan. haddaba markii uu bilaabmay dagaalkii labaad, dalka Japan wuxuu ahaa mid dagaal aan waxba la iskula hadhin kula jiray Maraykanka iyo xulafadiisa. haddaba dalka Japan waxa uu u baahday si uu dagaalka u sii wado bariis aad u tiro badan si uu u quudiyo askartiisa. haddaba dalka Japan ayaa ahaa mid dhammaanba xoog iyo cadaadis kula wareegay suuqyadii bariiska ee Kuuriyooyinka. middan ayaa saameyn xun ku yeelatay John
maadaama uu ganacsigiisu salka ku hayay ganacsiga bariiska. waxaanu noqday ganacsigiisu mid sii socon waaya oo halkaas ayuu ku burburay. middan ayaa haddaba saaxiibayaal ka dhigtay Chang mid aad u cadhooda una niyad jaba una karaahsada gumaysiga dalka Jabbaan, balse muuse noqon saaxiibayaal mid halkaasi isku dhiiba oo bartaasi fadhiista. hadalladii laga qoray ee taariikhda gale waxaa ka mid ahaa: haddii aan awooddeydoo dhan soo geeyo anigoo daacad u ah shaqadu noocay doontaba ahaatee, waxaan hubaa inaan ku guulaysanayo. markaan ninkii Chang ah waxauu rabaa inuu bilaabo ganacsi kale, balse markaan waa waaya arag oo xisaabo badan ayuu suuqa geysanayaa. waxaanuu rabaa inuu markan furto ganacsi aanay haba yaraatay wax saamayna ku yeelan faragashiga dalkaasi Jabbaan. waxaanuu bilaabay goob yaroo ganacsiyo uu dib ugu hagaajiyo gawaadhida xumaatay, isagoona markaasi maskaxdiisa ay ku jirtay haddeeta inaan ganacsigan laga baabiin doonin lagana bilalaqaysan doonin. haddaba markay taariikhdu marisay 1940kii waxa uu soo amaaday lacag yar, lacagtaasoo qadarkeedu dhammaa 3,000 oo ahayd lacagtii laga isticmaalayay markaasi kuuriyooyinka oo loo yaqaanay Korean wonka. waxaanuu lacagtii yareed ku furtay goob yaroo geerash ah oo gawaadhida lagu dayactiro. haddaba si fiican ayuu markiiba ula qabsaday ganacsigan oo wuxuu noqday ganacsigiiba mid muddo yaro kooban ku hirgala, isla markaana wuxuu muddo yaro kooban ku dayactiray gawaadhi fara badan. balse saaxiibayaal, keliyaata markii uu ganacsigan furnaa keliyaata muddo 2 bilood oo quryaata ah waxaa geerashkii qabsaday dab, kaasuuna dambaska ka dhigay dhismihii iyo wixii ku jirayba. waxaana taas sabab u ahaa qalalaasii ka dhashay dagaalkii labaad ee dunida oo waxaa soo gaadhay saamayntii dagaalka. middan ayaa haddaba mar labaad ka dhigtay mid la darsaa xaalad aad u adag, waxaana xaaladda ka sii darayeyba oo ka sii murjinayay markaasi oo uu ka seexan waayey culayska ay leedahay deyntu. oo Chang waxaa laga rabay inuu soo celiyo deyntii uu qaatay weliba wakhtigii lagu ballamiyey. sidoo kalena waxaa middaasi ka sii daranba dadkii iska lahaa gawaadhidii habeenkaasi laga shaqaynayey oo iyaguna ka mid ahaa hantidii ku dhex baabaaday dhismaha. wakhtigan oo kale haddaba saaxiibayaal waa halkay ku kala hadhaan dadku, oo dee siduu bini'aadamku u badan yahay wuxuu odhan lahaa qofka ay xaaladdan oo kale qabsato khalaas oo wuu isdhiibi lahaa. laakiinse wiilka yare Chang lagu magacaabo waxa uu isagu taagan yahay guul ama geeri, wax ka dhexeeya ma jiraan. waxaanu mar labaad qaatay amaah kale, waxauu qaatay lacag waxoogaa ka yar badan midii hore, taasina caddadeedu dhammayd 3,500. waxaanu aasaasay mar kale isla ganacsigii ka gubtay markii hore ee geerashka ahaa, balse markan wuxuu ahaa mid kaba sii ballaadhanba waxoogaa midkii hore. haddaba waxyaabihii uu ogaaday intuu furnaa ganacsigan ayaa ahayd in shayga koowaad ee macaamiishiisu ay aadka u dhibsan jireen uu ahaa wakhtiga faraha badan ee ay ka qaadanayso in loo dayactiro gawaadhidooda. haddaba isla markiiba Chang waxa uu awooddiisii maskaxdiisii oo dhan suugayey sidii uu xal ugu keeni lahaa mushkiladdan. haddaba muddo yaro kooban kabacdi meeraddii ama geerashkii Chang wuxuu ahaa mid gawaadhida loo keeno u dayactiro si ka dhaqsiyo badan, oo halka geerashyada kale asaagiisa ay ku qaadanaysay 20 cisho, isagu waxay ku qaadanaysay 5 cisho quryaata. middan ayaa haddaba saaxiibayaal ka dhigtay geerashkii mid successful ah, isla markaana si fiican u kala socda, iyadoona muddadaas 3 sanno gudahooda uu ku yeeshay 80 shaqaale ah oo isla markaana ka shaqaynayay geerashkiisa. isla wakhtigaasna waxa uu gebi ahaanba iska celiyay amaahdii lagu lahaa, waxaanuu faamilkiisii ka soo kaxeeyey tuuladii yarayd, waxaanuu soo dejiyey Seoul oo ahayd caasimaddii iyo markaasi halkii uga shaqaynayey. haddaba saaxiibayaal, haddaan wax yar idin xasuusiyo, wakhtigaan ka sheekaynayo weli dagaalweynihii labaad ee dunidu waxa uu ahaa mid socday, oo taariikhdu waxay maraysay 1944kii, wax yaruun ka hor intaanu Jabbaan Maraykanku ku dhufan qumbuladihii nukliyeerka ahaa, taasuna hadhow tooleba ka dhigi doonta dalka Jabbaan mid isdhiiba. balse intii aanu dhammaan dagaalku dalka Jabbaan wuxuu ahaa mid si weyn ugu baahi qabay dhammaanba noocyada kala duwan ee qalabka militariga oo ay ka mid ahaayeen gawaadhida dagaalku. haddaba mar labaad ganacsigii Chang waxaa la wareegtay dowladdii wakhtigaasi Jabbaan, waxaana u rogtay geerashkii mid lagu farsameeyo oo lagu soo saaro birta xadiidda si ay ugu isticmaasho samaynta gawaadhida dagaalka iyo wixii kale agab dagaal oo dhan ah. ninkii Chang ahaa saaxiibayaal waxaa isugu yimiday yaabkii adduunka. dowladdan Jabbaan ayuunbaa la daba dhigo ganacsi kasta oo madaxa u qaadaba kala wareegaysa kana dhacaysa. middan ayaa haddaba markan ka dhigtay mid mar labaad muddo dheer kadib dib ugu noqda dhankaas iyo tuuladii uu ku dhashay, isagoona halkaasi iska joogay
kana war dhowrayay ilaa uu dagaalku ka dhammaanayo. markii uu dhammaaday dagaalku waxaa laga adkaaday oo markaasi isdhiibtay dalka Japan, waxaana sidoo kale dhammaaday xukunkii Japan iyo gumaysigii ay ku haysay Korea, gaar ahaan koonfurta dalka oo ay si weyn gacanta ugu haysay. haddaba taariikhdu markay marisay 1946kii, Chiang waxa uu dib ugu soo noqon doonaa Seoul, waxaanuu dib mar kale boodhka uga jajafay geerashkiisii. inkasta oo uu ahaa dhismuhu mid duug ah oo hore, haddana magac bixinta uu Chiang u bixiyey ayaa ahayd mid cusub oo waxa uu bixiyey markaan Hyundai Auto Service, taasoona Soomaali ahaan marka loo rogo Hyundai ay noqonayso Soomaali ahaan casri, Englishna ku noqonayso modern. haddaba ganacsiga ayaa noqonaya mid si fiican u socda. waxaanu ogaanayaa Chiang in xilligaasi oo ku beegnay 1947kii uu Maraykanku dib u dhis baaxad leh ka wada dalka, halkaasna waxa uga soo dhex baxaysaa fursad aad u ballaadhan oo ku jirta ka ganacsiga dib u dhiska dhismayaasha dagaalku saameeyey. haddaba si uu middaasi u sameeyo, maadaama uu lahaa waaye aragnimo hore oo dhanka dhismaha, waxa uu bilaabay inuu wax isku jexjecbursado oo lacag isku geegeeyo. kadibna waxa uu hore ka sameeyey kumbani ka shaqeeya dhankaas iyo dhismaha, waxaana uu bixiyey Hyundai Engineering and Construction Company. halkan waxaynu ka faa'iidaysanaa siday muhiimka u tahay inaad ka faa'iidaysato fursadaha ku soo maraya. haddaba Chiang iyo kumbanigiisu waxay ahaayeen qaar markiiba helayay qandaraasyo yaryar ilaa ay saaxiib laga soo gaadhayay sannadu markay ahayd 1950kii oo ku beegnaydun kadib muddo 3 sanno ah markii uu bilaabay kumbaniga dhismaha. waxa uu helayay qandaraasyo big project ah oo waaweyn, yacni waxa uu helayay dalabaadyo dhanka dhismaha oo balballaadhan. haddaba ninkii Chiang ahaa ganacsigii geerashka middan ayaaba uga macaash badnaatayoo maadaama oo uu helayay markaasi qandaraasyo waaweyn, kumbanigan constructionka ayaa noqday ganacsigiisa koowaad ee markaasi uu siiye ahmiyad aadka u ballaadhan. haddaba wakhtigaasi isaga xaaladdu waxay ahayd mid degan oo ninkii Chiang ahaa iminka waxbaaba iskugu tootoosayoo daruuraha ayuu madaxa kula jiraa, balse saaxiibayaal ninka Chiang ahaa markasta uu madaxa kor soo qaado waxay imanaysay masiibo ka baabiisa wixii yaraa isku tootoosistay, sida aynu marar badan oo kala duwan ku soo aragnay sheekada Chiang. haddaba si aynu si fiican ugu fahanno, markii hore dalka Korea waxa uu ahaa mid dusha ka ah mid keliyaata, balse u kala qaybsan waqooyi iyo koonfur. dhanka waqooyigu waxa uu ahaa mid la safta mar walba dhankaas iyo midowgii Soofiyeti, xagga koonfurtuna ay saaxiib dhow la ahayd xulafadii uu hogaaminayay Maraykanku. haddaba taariikhdu markii ay marisay Juun 1950kii, North Korea ayaa dagaal ku soo qaadaysa South Korea ilaa ayba ku dhowaatay inay qabsato caasimadda South Korea, oo waxay ahayd mid aad ugu soo dhowaatay Seoul oo ahayd caasimadda koonfurta Korea. taas baana ka dhigtay ninkii Chiang ahaa inuu mar labaad Seoul isaga baxsado, isagoona u baxsaday dhankaas iyo magaalo lagu magacaabi jiray Busan oo ahayd caasimadda labaad ee South Korea. waxaanu hore u sii qaatay maal iyo wixii kayd u ahaa ee markaasi uu qaadin karayey. inkastoo haddaba saaxiibayaal midani ku ahayd Chiang mid uu si weyn uga cadhooday, haddana sidii aynu marar badan oo noloshiisa ah baynu ku soo aragnay muusan noqon mid isdhiiba. haddaba wakhtigaasi isaga ah ciidamada Maraykanku waxay ahaayeen qaar dagaal kula jiray ciidamadii soo duulay ee North Korea ee taageerada ka helaya markaasi midowgii Soofiyeedka. haddaba ciidamada Maraykanka ee joogay koonfurtu waxay u baahnaayeen dhismayaal ay ka mid yihiin goobo ay degaan ciidamadiisu sida saldhigyo iyo bakhaaro ay hubka ku kaydsadaan. haddaba halkaasi iyada waxay fursad weyn uga soo dhex muuqatay ninkii Chiang ahaa oo waxa uu islaa ciddan Maraykanku waa ciddii doolarka samaynaysaba oo warwarka muusan qabin dhankaas iyo kharashka. sidoo kalena waxaa jirta hal shay oo uu ogaa, middaasoo hadduu sameeyo si yaroo fudud qandaraaskan uu ugu qaadan karo, taasoona ahayd in hadduu siiyo Maraykanku wuxuu u baahan yahay oo ahayd inuu si dhaqsiya loogu dhiso saldhigyada, weliba ay noqdeen dhismayaashaasi qaar laysku halayn karo tayadooda, uu si yaroo fudud ku qaadan karo qandaraaskan. haddaba Chiang oo middaasi fahansanaa kana dharagsanaa ayaa siiyey adeegyadii ay tabayeen, waxaanuu ka dhigay mid ka haqabtira dhankaasi. waxaanuu wakhtigaasi isaga ah bilaabay inuu tiim shaqaalihiisa ka mid ah oo ka mid ahaa shaqaalaha shirkadda Hyundai Engineering Construction uu u saaray daraasiinta mashruucan. waxaanay ku soo warceliyeen oo ay u sheegeen in haddii uu kharashku saxan yahay ay dhisi karaan projecti ama mashruuc kasta oo markaasi loo dhiibo. haddaba waxay sidaasi ku bilaabeen dhismihii ay u dhisayeen ciidamada Maraykanka
inkastoo xabaddu kaba dul socotay dushooda haddana Chang wuxuu ahaa mid ka dhabeeya weedhiisa oo mashruucu bilaabay weligii dhexda kagmuusan tegin oo waxuu ahaa mid ku midta ilaa iyo dhammaadka. haddaba howlkarnimadiisii iyo dadaalkii dheeraadka ayuu bixinayay waxayba ka dhigtay mid markaasi xidhiidh dhow la yeesha dowladdii markaa ee Maraykanka. haddaba markii uu dagaalkii Kuuriyooyinka soo dhammaaday muddo markaasi 3 sano uu socday kadib 1953 waxuu ahaa dalku mid aad u burbursan. haddaba Maraykanku wuxuu ahaa mid dib u dhis ka waday dalka sidoo kalena waxaa waday qorshe uu kaga aasaasay koonfurta Kuuriya dowlad u gaara. haddaba si loo dhiso dowlad waxaa loo baahday bilowgiiba in laga gaadhsiiyo oo la dhiso bariishyo waaweyn, daamam iyo sidoo kale waddooyin. haddaba Chang iyo shirkaddiisii dhismaha ee Hyundai ayaa ahaa qaar door muhiima ka qaatay dib u dhiska dalka. dhaamka ugu weyn South Korea oo lagu magacaabo Soyan Dam iyo sidoo kale waddada ugu weyn dalka oo lagu magacaabo Kuyumbu Expressway waxaa dhistay shirkadda Jun ee Hyundai. haddaba 1960kii cimriga Chang waxau ahaa mid markaasi marayay da'da kontoniyada isla markaana wuxuu ahaa mid iska leh mid ka mid ah ganacsiyada sida weyn u guulaystay ee dhanka dhismaha ka shaqaynayay. laakiinse midan kumaysan filnaano waxa uu markaasi damcay inuu sii ballaadhiyo boqortooyadiisa iskuna dayo bilaabista ganacsiyo kale. haddaba inkasta uu Chang dalka ka dhisay waddooyin kumanaan iyo kumanaan kiiloomitir ah haddana wuxuu ahaa mid rabay doorkan inuu dhiso uu sameeyo gawaadhidii yaaci lahayd waddooyinkaas. 1957kii Chang waxa uu aasaasay kumbani uu bixiyey Hyundai Motor Company waxaanu sanad kadib 1968kii la galay wada shaqayn iskaashi kumbaniga Maraykanka ah ee sameeyay gawaadhida ee lagu magacaabo Ford. halkaas oo inay shirkadda Chang liisan ogolaanshiyaha kaga qaadatay kumbaniga Ford iyadoona si tafaraaruqa uga soo iibsan jirtay kumbanigan qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay. mid ka mid ah gawaadhida ay soo saarta Ford oo lagu magacaabi jiray Ford Cortin. kadibna kumbaniga Chang wuxuu ahaa mid gudaha koonfurta Kuuriya ku rakibi jiray gaadhigan lagu magacaabi jiray Cortin. heshiiskanna waxa uu socday muddo 2 sano ah. haddaba muddada 2 sano ah shirkadda Hyundai waxay ahayd mid markaasi waaya aragnimo iyo aqoon fara badan ka dhexlisay samaynta gawaadhida iyo noocyada kala duwan ee qalabka loo baahan yahay marka la dhisayo gaadhi. ilaa laga soo gaadhay haddaba saaxiibayaal khilaaf baasan oo soo kala dhex galay markaasi labada kumbani. kumbaniga Ford muusan ahayn mid rabay in kumbaniga Hyundai uu si iskiya u dhisto gawaadhi u gaara balse taariikhdu markay marisay 1973kii kumbaniga Hyundai wuxuu gebi ahaanba ka baxay heshiiskii waxaanu isku dayay inuu la shaqeeyo kumbaniyo dhowr ah sida kumbaniga General Motors iyo sidoo kale Volkswagen balse mid kastaaba wuxuu ahaa mid iska diida. balse ugu dambeyntii isla sanadka waxaa wada shaqayntooda aqbashay kumbani Jabaaniis ah oo lagu magacaabi jiray Mitsubishi Motors. waxaanu ahaa kumbanigan Jabaaniiska ah mid diyaar u ah inuu markaasi siiyo tiknoolajiyadda uu ku dhisay gawaadhidiisa kumbaniga Hyundai. sidoo kalena waxaa heshiiska ka mid ahaa inay Hyundai soo saari karto isla markaana ay iibin karto gawaadhideeda u gaarka ah oo muusan noqon kumbanigan Jabaaniiska ah mid xorriyadda ka qaada Hyundai. haddaba isla wakhtigaasi dowladda Kuuriya waxay ahayd mid raadinaysay inay u hesho muwaadiniinteeda gawaadhi ay awoodi karaan isla markaana tayadoodu tahay mid laysku halayn karo. sidoo kalena waxay rabtay in badiba agabka laga samaynayo gawaadhidaasi ay noqdaan qaar laga soo saaro ciidda dalka. 1976kii Chang waxa uu la yimid hindise cusub waxaanu soo saaray gaadhigii ugu horreeyey ee guud ahaanba lagu farsameeyo gudaha South Korea. magac ahaanna waxay shirkaddu u bixisay Hyundai Pony. haddaba qiimaha lagu iibsanayay oo ahaa mid ilaa xad macquul ah waxay ka dhigtay mid si weyn loo iibsado oo u najaxa taasuna ka dhigtay kumbaniga mid 60% suuqa gawaadhida qabsata. waxaanay noqotay Hyundai kumbaniga ugu weyn soo saara gawaadhida marka laga hadlayo gudaha dalka South Korea. haddaba inkastoo uu saaxiibayaal gaadhigan ahaa mid si weyn ugu dhex guulaystay gudaha South Korea dhanka kale suuqyada dibadda markii ay Hyundai Pony loo iibgeeyey waxa uu ahaa gaadhigan mid suuqyada qurbaha ka soo hoynayay guuldarooyin waaweyn. kuwaalitiga gaadhigan muusan noqon mid gaadhsiisan ilaa heer laysku halayn karo. dheeha ama midabka gaadhigu waxa uu ahaa mid si yaroo fudud kulaylka cadceeddu ku bedelayo sidoo kalena wuxuu ahaa mid markaasi ciladiisu badan tahay. haddaba saaxiibayaal sababahan awgood kumbaniga Hyundai wuxuu noqday mid 7 sano xidhiidh ah ay kaga socotay dhiigbax dhaqaale dhankaas iyo suuqyada dibadda.
haddaba markuu xaalku halkaa marayay dadku waxay kula talinayeen Chang inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u xidho kumbaniga, balse Chang go'aankuu qaatay wuxuu ahaa mid ka anfiriirsiiyey qof kasta. halkii uu kaga dhawaaqi lahaa xidhitaanka kumbaniga, beddelkeedii wuxuu shaaciyey inuu dhisay warshad cusub oo markaasi awood u leh inay soo saarto sanadkii 300,000 oo gaadhi. maamulayaashii kumbanigiisu maysan ahayn qaar si yaroo fudud gebi ahaanba ku fahmi karayay go'aanka Chang. yaa inaga iibsanayaa 300,000 oo gaadhi? laakiinse Chang ayaa ahaa mid hayay jawaabta. waxa uu ogaa in dhaqaalaha dalku uu si xawliya ku korayo maalinba maalinka ka sii dambeeya, dad badanina ay awoodi doonaan iibsiga baabuurtiisa. sidoo kalena waxa ogaa dhanka kale in haddii uu sameeyo saaxiibayaal gaadhi tayadiisu tahay mid aad u sarraysa, uu si weyn ugu guulaysan doono sidoo kale suuqyada caalamiga ah. warshadan cusub ayuu haddaba Chang bilaabay dhisideeda sannadu markay ahayd 1980kii. 2 sano kadibna 1982kii waxay sii daysay shirkaddu fershankii labaad ee gaadhiga Hyundai Pony oo ahaa gaadhi si weyn uga hormarsanaa fershankii hore Pony 1. haddaba gaadhigan cusub muusan ahayn keliyaata mid hit ka noqda gudaha South Korea, ee waxa uu sidoo kale noqday mid si weyn ugu dhex guulaysta suuqyada dibadda. suuqyada sida weyn xilligaasi looga soo dalbanayay gaadhigan cusub waxaa ka mid ahaa suuqa Ameerika, suuqa Laatiinka, midka Canada iyo sidoo kale suuqyada Afrika. waxaana shirkaddu muddo yaro kooban ku iibisay 400,000 oo gaadhi, waxaana sidaasi ku noqotay shirkaddu mid samaysa markaasi faa'iido laxaad leh. isla markaana iminka Chang iyo shirkadiisa Hyundai Motors waxay noqday mid si weyn looga barto dunida inteeda kale. balse markaan shirkaddu waxay mid awoodeeda oo dhan isugu geynaysay sidii ay saameyn weyn ugu yeelan lahayd suuqyada dalka Maraykanka. si uu ganacsi guulo waaweyn uga soo hooyo suuqyada caalamiga ah, waxay ilaa xad muhiim ah ama khasab ahayd saaxiibayaal inuu marka hore dhankaasi suuqyada dalka Maraykanka uu ku dhex noqdo mid guulaysta. haddaba markii ay shirkadda Hyundai daraasad ku samaysay suuqyada Maraykanka, waxayba ogaatay in gawaadhida Jabaaniisku yihiin qaar xoorto ku haysta suuqan. waxaanay ogaatay sidoo kale in shirkadaha ka dhisan gudaha dalka Maraykanka ayba ahaayeen qaar mar hore ku kala baxay saami qaybsiga suuqan oo wuxuuba ahaa suuq lagu kala tegey. haddaba markii ay intaasi ogaatay shirkadda Hyundai, Chang iyo la taliyaashiisi waxay dhigeen shaxdii ay suuqa ku geli lahaayeen. waxaanay ogaadeen inay sida keliya ku geli karayaan suuqan ay tahay inay iibiyaan gawaadhida yaryar ee loo yaqaano subcompactiga oo ahaa qaar tartankoodu yahay 0%. sidoo kalena midda cajiibka ah ee ogaadeen Chang iyo la taliyaashiisu ayaa ahayd in suuqa gawaadhida ee second handka lagu iibiyo uu yahay suuq xaami ah, isla markaana ay shacabka Ameerikaanka yihiin qaar si weyn u gata oo u iibsada gawaadhidan. haddaba si ay uga faa'iidaystaan fursaddan, waxay shirkadda Hyundai samaysay ficil maskaxaysan oo runtii cajiib ah. waxay ogeysiinaysay dadka in gawaadhideeda imikuun warshadda ka soo baxay ee cusub ay siinaysa qiimo la mid ah oo seem ah midka ay ku iibsan lahaayeen gaadhi second hand ah oo looga soo horeeyey, oo aanay ogeyn xitaa waxay kala kulmi doonaan hadhow markay kaxaystaan. miyuu ka xumaan doonaa, miyuu hagaagi doonaa, lama garanayo. waa 50%. balse gawaadhida Hyundai waa qaar maalmo yaro kooban ka hor ka soo baxay shirkadda, oo waaba gawaadhi jadiid ah oo qashtiya. intaasoo keliya ugama hadhin ee qof kastoo gaadhi ka iibsada waxay siinayeen 5 sano warranty ah. istaraatiijiyaddan ay waday shirkadda Hyundai ayaa noqotay mid aan fariir ku riday suuqyada Maraykanka. iibsadayaashii gawaadhidii second handka ahna waxay markiiba noqdeen qaar u soo wareega dhankaas iyo gadashada gawaadhida Hyundai. 1986kii shirkadda Hyundai waxay 170,000 oo gaadhi ku dhex iibisay gudaha dalka Maraykanka, gaar ahaan modelka ay u bixisay shirkaddu Hyundai XL. 1987kii oo ahayd isla sanadkii ku xigana waxay mar kale gudaha Maraykanka ku dhex iibisay 260,000 oo gaadhi. modelkan ay shirkaddu ugu magac dartay Hyundai XL ayaa noqday mid kaalmaha sare ka galay guud ahaanba gawaadhida dibadda loogu soo dhoofiyo dalka Maraykanka. midaan dabadeed dib looma arkin shirkad Maraykanka dhexdiisa ka xidha iskoodha la mid ah midkii ay Hyundai samaynaysay. midan ayaa haddaba saaxiibayaal ka dhigtay shirkadda Hyundai mid ka mid ah kombaniyada ugu waaweyn marka la soo hadal qaado samaynta gawaadhida. isla waqtigaasna ama isla sanadkaasna waxaa shaqada shirkadda ka fadhiistay Chang Choo-young, isagoona xilligaasi da'diisu maraysay 72 sano. waxaana maamulka shirkaddiisa sii waday qaar ka mid ah walaalihii iyo carruurtiisa.
maanta shirkadda Hyundai waxa weeye kumbaniga saddexaad ee ugu weyn ee sameeya gawaadhida caalamka oo dhan marka laga yimaado shirkadda Toyota iyo shirkadda kale ee Volkswagen. hal sano gudahood waxay shirkadda Hyundai ku iibisay in ka badan 40 milyan oo gaadhi 2022. inkasta oo si weyn loogu garan og yahay looguna bartay Hyundai samaynta gawaadhida, haddana mid aysan dad badani ka warqabin ayaa in kumbaniyada Hyundai ay gaadhayaan ilaa 41 kumbani oo kale oo waaweyn. tusaale waxaa ka mid ah Hyundai Elevator, Hyundai Information Technology, Hyundai Heavy Industry oo ahba kumbaniga ugu weyn dunida ee dhisa ama sameeya maraakiibta waaweyn ee xamuulka qaada. haddaba saaxiibayaal, South Korea marka la joogo magaca Hyundai kama aha magac uu leeyahay kumbani yaro iska caadi ah, balse Hyundai waa dowlad dhan oo ka hoos dhisan dowlad kale. waxay dib u dhistay dal dhan, waxaana malaayiin shaqo u abuurtay dhalinyartii dalkeeda. qisada boqortooyadan waxay dib ugu noqonaysaa qisada wiil yaroo beeraha bariiska ka fali jiray tuuladooda si uu keliyaato u helay wuxuu maalinkaas cuni lahaa, balse uu galay han iyo himilo ah inuu mudan yahay nolol ka duwan midii uu ku noolaa. kadibna uu howlgalay kuna adkaystay una dulqaatay ilaa uu ka helayay shaygii uu rabay nolosha. haddaba yeelahan sare adiguna si aad ugu noolaatid nolol sare. cabdiqani Top Boy, salaamu calaykum.